runtii sharaf weyn bay ii tahay kulanka maanta inuu qabsoomo gaduudana in dhinacayga fadhido oo wax badan oo aad afka kala xishoon lahaydeen ay si fiican u sheegtay maadaama ay tahay qof waaye araga waxaan halka u imid oon isu aragnay waxa ugu muhiimsan inaan iswaraysanno oo xogta dhabta ah kala war qaadanno si meesha aan hadda joogno uga dhaqaaqno haddaanan xog la helin way adkaanaysaa waxqabad muuqda inuu qabsoomo runtii haweenku waxa ay yihiin isu sheegi mayno marka laga tago inay waalid iyo walaal iyo wax walba yihiin haddana waa lafdhabarka bulshada Soomaaliyeed iyadoo bulshooyinka adduunka dhafirkeeda ay meelo weyn ku jiraan laakiin Soomaaliya way ka farawacan tahay marxaladan adag maamulka Puntland waxay u leeyihiin lafdhabar waan qirayaa waxa ay qabtaan iyo hawsha ay maraan iyo marka abaalmarin ama xusid ama waxsiin ay dhacdo in raggu ay horor yihiin oo ay wax badan ay ka hororsadaan waxaan rajaynayaa arrimahaas ma ballan qaadayo kulli inaan ka gudbaayo laakiin waxaan rajaynayaa inaan tallaabo hore u qaadno haddii Ilaahay idmo hoos u dhiganno waxyaabaha jira iyo xaaladaha dhabta ee jira nabadda iyo nolosha maanta Soomaaliya haysato gaar ahaan Puntland haysato salka lagu fadhiyo waa haweenka waxaas dhalinyaro qurxoon iskuulada iyo jaamacadaha iyo meel walba aadaya cidda ku tiiriya tacabeeshay oo runta ah waa haweenka iyagoo waalidkii iyo aabbayaashii ay waxba ka hagranayn laakiin duruufuhu markay adkaadaan waa loo kala adkaysi badan yihiin waxaan qirayaa haweenku inay ka adkaysi badan yihiin markay dhabta timaado ragga oo duruuftu adkaato waxaa laga yaabaa ninku markuu arko inuu waxba qaban waayo qaarkood inay iska cararaan oo xataa meeshii reerku jooga isaga tago laakiin hooyadu way adag tahay inay ka tagto xaalad kastay u wajahdaa waa dhici kartaa oon waaba garanayaa rag badan oo intay ka carareen duruuf adag markay soo noqdeen mise dadkii oo fiican oo waaweynaaday oo jaamacada ka baxay inay u yimaadaan sometimes way dhacdaa marka iyadana waxaan rajaynayaa in nolosha waa lamaanay si fiican loo fahmo qof walbana kaalinta uu mudan yahay uu qaato haddii ragga iyo dumarkuba gacmaha isqabsadaan meesha aan maanta joogno meel ka horumarsan baan gaaraynaa haddii Ilaahay idmo dhaqankaas raggu Soomaaliyeed ama wadamada qaybtood marka waxqabadka iyo hawshana ay dumarka xasuustaan kuwan hadda xataa beelaha u hadla iyagu baa isku hadla inta badan markii wax la siiyana iyagu baa qaybsanaya hadday jaga tahay iyo hadday wax kala tahayba runtii arrintaas waa arrin aysan Puntland ku sii socon karin haddii tirada percentage-kii badnaa ay gabdhihii yihiin shaqadii iyaga ku dhacayso xogta ay hayaan raggu ma hayaan waan ogahay gabdhaha booliiska ah xogta ay hayaan ninka ragga ah oo booliiska ah ma hayo maadaama ay lafdhabar u yihiin xaqiiqada waddanka lagu fadhiyo hadday tahay amni hadday tahay dhaqaale hadday tahay arrimo siyaasadeed ruuxadeeda raggii markaan kari weynay guduudu shirka ay sheegtay maalin dhaweed qabteen markay maqleen gabdhihii hadalkooda rag badan baa isbedelay xataa marka siyaasadda xataa door weyn baad ku leedihiin maxaa yeelay meelaha la iska soo galayo hadda anagu dee Puntland dhaqan ahaan waa dad xoogaa dhaqan adag waana lagu soo caramaalay dhaqankeennaas wuxuu ahaa in ragga iyo odayaashu ay hogaamiyaan haweenkuna ay garab u noqdaan laakiin hadda dad aan dhaqankeena lahayn baa dee Ilaahay wax isugu kaayo daro dalka waa isbedelay marka taasna runtii waxay u baahan yihiin in
xog badan la siiyo ruuxadooda oo haweenka siyaasadda maanta jirta sidii looga dhaqmi jiray laguma sii dhaqmi karo maxaa yeelay dalka Soomaaliya isbeddel badan baa ka socda marxalado badan oo la dhihi jiray odayaashu waxay muhiim u ahaan jireen ragga soo xula la dhihi jiray baarlamaanka baa jirtay hadda waxaa dhacaysa in doorasho loo dareero haddii doorasho la aadayo siyaasadda muhiimka dadka noqon doona haweenkay noqon doona maxaa yeelay nambarka badan oo wax dooran doona iyagay noqon doonaan abaabulka iyo hawshana iyaga ayaa yeelan doona marka xukuumadda aan madaxda ka hay iyo dowladdeedan ahmiyad gaar aan siin doonaa haweenka haddii la haydno annagoo u aragno inay yihiin mustaqbalka berito oo muhiimka ah waxaan rabnaa inaan xogaha aan hayno aan la wadaagno dowladda si mug leh aada uga qayb qaadataan waana caddaynaynaa haweenku hadda hagee ka tirsan yihiin bay tiriyo haweenka wasaaradaha oo dhan bay ka tirsan yihiin meel gaar kama tirsan dowladda lafdhabar bay u yihiin waxaan rabnaa qayb walbana inaan awood siino haddii la haydno haddii ahaan lahayd wasaaradda haweenka haddii ahaan lahayd arrimaha gudaha haddii ahaan lahayd kuwa ciidamada ku jira haddii ahaan lahaayeen kuwa qaybaha kale wasaaradaha kale jira laakiin ururka haweenka waxaa la rabaa meesha uu maamul ahaan ku tiirsan yahay inay caddahay waa sax wey taas nidaamkii aan ka soo gudubnay ee shuuciga ahaa ururka haweenku wuxuu ahaan jiray hay-ad madax bannaan oo guddoomiye leh oo iyada danaheeda qabsata waxaa dhici karta nidaamkan cusub oo inta badan dalku u socdo inuu saa u qeexnayn marka waxaa la rabaa in la qeexo waa la qabaa guduudo sida ay yihiin kolley ra'yi baan hadda ka leeyahay laakiin macno male inaan hadda sheego lakin waxaa la rabaa in intii laga tashado ururadan sida ay ku soo baxayaan sida isku xukumayaan sida isku dooranayaan cidda jihada ay raacsan yihiin waxaa la rabaa inay si qaanuuniya noqoto cad oo aanan madmadow ku jirin inaan waana ka shaqeynaynaa si dhow haddii lahayd waayadan dambe waxaa isku qasmay ururada NGO-ga ah iyo ururka haweenku naftirkiisa wuxuu u baahan in la kala soco haddii dad gaara abaabulaan oo iyagu ay leeyihiin organisation gaara iyo midka dawliga ah naftirkiisa ilaan NGO-yada waxaa la dhahaa non governmental way soo maha waa hay-adaha aan dawliga ahayn qofku waa samaysan karaa ururo arday gabdhaha baa jiri kara ururo xaafadeed oo gabdhaha baa jiri kara oo u abaabulan inay dowladda ka tirsanayn oo danahooda qabsada kuwaas adduunku waxay ku salaysan yihiin dakhliga ay ku shaqeeyaan waa inay iyaga iska qaadaan ya membershipka inay ka qaadaan ama cid kaloo wax siisa ama projects ay helaan laakiin kuwa dawliga ah inay qeexan yihiin baa la rabaa iyo meesha ay ku salaysan yihiin oo runtii gobolka iyo degmada inta badan ay la xiriiraan iyadana haddii la haydno waxaan ka soo saari doonaa nidaam cad marka aan wasaaraddii iyo wasaaradahay khusaysay iyo kulli aan ka talagelin haddii la haydno dhowaanna si faahfaahsan bay inay soo gaari doontaa waxaan ku faraxsanahay runtii gabdhaha magaalada Boosaaso oo caan ku ahaa wadaniyadda iyo daljacaylka iyo nabadgelyada ka shaqeyntooda waan filayaa guduudo gabdhihii sagaashanaadkii la shaqeyn jiray wax yar baa ii muuqdo oo joogaan filaya dadka badankiisa generation cusub baa soo baxay laakiin in waxa ugu ayaanka fiican waxa weeye generationkii hore joogo generationka cusub markuu la yimaado waxay helayaan khibrad iyo iyagoo ka dhaxlay generationkii ka horreeyay waxay qaban jireen deegaanada qaybtood waxaa ku dhacday wixii horena waa dhammaadeen oo dee burbur baa dhacay kuwa cusubna dhaqan cusub oo aanan waxba ay kaga dayanayn dadkii hore ayay saanta la qaadeen laakiin waxyaabaha Puntland ay ku badbaaday waxaa ka mid ah jiilba jiil buu bedelayay marka taas waa wax ilaahay mahad gaara noo siiyey
waxaan ugu wacnaa nabadii iyo kala dambeyntii aan helnay iyo hogaankii runtii siyaasiga ah iyo dhaqanka ah ee dalka ka jiray iyo hogaankii haweenka ahaayo qayb ka ahaa hogaanada siyaasiga ah oo mar walba udub dhaxaadka u ahaan jiray oo salaada ma joogtaan u malaynaya kolley waa nooshaasaan maqlay ya ha salaada mirood ma joogtaa faluuja jirtaa ya salaada waa joogtaa salaada salaada fahmo nuur salaada iyo hufan cartan allah u naxariiste iyo caasho iyo caashada la-aan iyo dadka aan xasuusto waa qofta magaceedu waa ilaa laakiin walaasha ina cali jaamac garanaya walaasheed faadimo maryaruun ma noosha horta ma dhimatay yaasiinna waa dhintay allah u naxariiste waa maryaruun baan aada u garanayaa runtii dadka muhiimka ahaa oo gobolkan soo maray ahaa waxaan runtii way ka duwanaayeen degaanada kaleeto waxaana keenaya ilbaxnimada magaaladan magaalo ilbaxnimo ah weeye magaalo xeebeed weeye horumarkaas waxaa la rabaa jiilka cusub inay dadka ka horreeyey taariikhdii ay ka soo mareen ay qeyb ka qaataan nabadda halka lagu fadhiyey dumarkaa dhaliyey guduudana way ka warqabtaa khilaafaad siyaasiya oo xoog badan baa jiri jiray dadka xallin jiray iyagay ahaayeen marka la isu geli waayo oo xaaladdu adkaata maxaa yeeley markii lasoo qaxay waxaa dalka iskugu yimid dadkii nidaamkii siyaasiga ahaa jiray ka cararay oo jabhadaha hubaysan ahaa iyo kuwii laga cararay oo dantu halka isu wada keentay marka aragtiyo kala duwan iyo qaybo kala duwan oo siyaasi ah baa halka isugu yimid loolan siyaasadeed baa dhacay marka loolankaas siyaasadeed dadkii isfahamsiiyey oo runtii in laga gudbo oo xaaladii abuurantay ee dadka u horseeday gabdhahay ahaayeen waan uga mahad celinayaa kuwa haddana waxaan rajaynayaa inay waddadii qaadaan oo dad raggu waa iska damac badan yihiin dad hadhadlaayo oo dana leh lama waynaye dadka mar walba midnimada ilaalinaya isku duubnin inaa idinka noqotaan baan ilaah idinka rajeynaya dekedii waa la gatay iyo waa la qaatay waad ogtihiin oo dekeda dadka ugu manfaca badan baan ahay oo ka shaqayn jiray oo ka shaqaysan jiray haddana muhiimadda weyn u leedahay waxa aan ka shaqaynayo qofku wuxuusan garanayn markuu shaqaynayo waa dhib laakiin waxaan ka shaqaynayo waxaan sii garanayo wey dalkan taariikhdiisii horena intii burburka ana goobjoog baan u ahaa haddana mas-uul baa ilaahay qadaray waxa aan ka shaqaynayna waa horumarkiisa iyo dadkan meeshay maanta joogaan meel ka fiican inay tagaan dabcan dadkii qeybta ka soo ahaa baan ahaa meesha maanta la joogo in la yimaado haddana waxaan u socdaa meesha hadda la joogo meel ka fiican in la sii aado marka waxaan u baahannahay dadka damaca leh oo mar walba duulaanku ah waagaasba waa jiri jireen ya waad ogtihiin oo ururo diin sheeganayo hubaysan baa dalkan qabsaday dadku laayay isbeddelaha ka dhacay intii markaas fikirkooda ka hari waayana waa la iska eriyey intii degaanka ahayd oo dantooda gartana waa dadka maanta ka qayb qaatay isbeddelkan weyn oo dalka ka jiraya dhismihiisa kuwii kuwo la mid oo nooc kaleeto haddana duulaanku ah dalkiibaa buurahan saaran iyagan oo u baahan casharadii waagii hore la baray kuwo la mida in la tuso oo marna aan loo ogolaan dalkan dadkiisa inay u yimaadaan waxaa kaloo iyadana muhim ah beerlaxawsiga ay dhici karto in mararka qaarkood dadku ay ku waayaan maslaxadooda iyadana inaan aada uga dhoog furnaano dadka reer puntland waxaa lagu yaqaanaa bulshada soomaaliyeed laablakaca ku badan laakiin dadka reer puntland waa dadka fiirso badan weliba reer boosaasa markii wax la daldalo waagi hore waxay dhihi jireen aala tahay dantooda qabsan jireen hadda kuwo iska hor ordaayaa yimid baan u malaynayaa oo aaban ka fiirsanayn marka in laga fiirsado
waxyaabaha la sheegaya waa muhiim in danteena aan garanno waa muhiim dalkan annaga un bayna huran yahay waxa aan horena annaga reer Puntland haddaan nahay wanaagiisa iyo nabadgelyadiisa ka soo shaqeynay haddana dadkiisa un baa ka shaqaysan doona cid kale oo wax u qaban doonta ma jirto xaqiiqadu waa sidaas dalku wuxuu galay nidaam dimuqraadiya wuxuu galay nidaam federaal ah wuxuu galay hab ka duwan habka dalka maamulkiisa loo wada yeelanayo dalku wuxuu yeelanayaa wax la kala leeyahay iyo wax la wada leeyahay waxa la kala leeyahay oo ismaamulka ah oo state-ka iyo federaalka ku dhisan yahay dadkiisa ay yeelan doona waa inaan dadka lagu beer la xawsan nidaamkii halka meel looga talin jiray oo dadkii ugu horreeyay oo diiday dadka dhulkaan ay ahaayeen markay arkeen in meel nidaam ku urursan oo deegaanadoodii aan lagu horumarinayn oo dadkooda lagu bartilmaameysanayo oo danahooda aan looga shaqaynayn oo gurbaan iyo caadifad beera iyo wadaniyad aanan dana gaara laga leeyahay lagu mashquuliyey wixii laga dhaxlay waa la ogaa dalka markii loo soo qabxay gurigaan oo talyaaniga ka tegay iyo dhowr guri baa ka dhisnaa soo maaha iyo cisbitaalka oo talyaaniga ka tegay ma wax kale ayaa horta boosaaso markii la yaaray ilaa dadka badankooda ma ogay daaraha ka dhisnaad way koobnaayeen oo dawladdu leedahay marka intaasna kan iyo iskuulka halka ahaa iyo dhowr meeloodoo iyo bangi iyo talyaaniga intooda badan ka tegay baa u ahaa hanti maanta waad arkaysaan magaaladu meesha ay gaartay waxaan aada ula yaabanahay iskuulka Nawaawi 96 dhismiis markaan bilaabeynay dhulka waa geedaha laga qaado waxa la lahaa xagee u socda dadka muwaaliin meel cidla ah oo war dhurwaagii ay nagu cunin baa la oran jiray maantana magaalada bartankeeda way soo meesha magaalada aad wad arkaysaan marka waxa lagu gaaray waa ismaamul iyo deganaansho iyo horumar waxaan rajaynayaa inaad arintaas sii wadaan waxaan guddoonka gobolka oo aan rajaynayno habka uu shaqeyn jiray inaan isbedel isagana ku samayn doono iyo guddoonka degmada iyo hay-adaha dawladda ee magaalada Boosaaso jooga iyo gobolada kaleetaba waxaan fareynaa in sidii loo shaqeyn jiray si ka duwan loo shaqeeyo oo doorka haweenku leeyihiin la siiyo oo talada dalka ay qayb ka ahaadaan oo iyagu ay noqdaan lafdhabarta maamulka ee gobolka waana ku kormeeri doonaa haddii Ilaahay waana kula xisaabtami doonaa haddii Ilaahay idinka dhigo waxaan inii ballan qaadaynaa inay xafiisyo la yaqaan oo muuqda aad maamulka kaga yeelataan isbedelkaas si dhow baan ula socon doonaa waayo dadka ugu faraha badan ee hadda jaamacadaha ka baxayana nasiib wanaag gabdhahay u badan yihiin raggii waxbarashada waa ku liitaan waa la socdaa gabdhaha xoogoodii jaamacadihii ka baxaya marka waxaan inii ballan qaadaynaa haddii Ilaahay idmo intii karaankeenna ah inaad talada dalka wax ku yeelataan xafiiskayga nagama xirnaan doono aniguna waa inla tashan doonaa wasiiradana midkii inla tashan waayo dib u eegid baa lagu samayn doonaa haddii Ilaahay maxaa yeelay lafdhabar baa u tihiin dowladnimada aan rabno iyo midda aan u soconno lafdhabar baa u tihiin taasaan rabaa inaan ii caddeeyo waxaa la rabaa inaad qaybaha bulshada ugu muhiimsan baa tihiin kaalintiina inaad qaadataan maamulka iyo difaaca iyo horumarkaba aad qayb ka qaadataan gabdhaha ciidamada ah doorkooda uu muuqdo kuwa maamulka ku jira doorkooda muuqdo kuwa ganacsiga ku jira aad ba u muuqdaayo dee iyagaa inta xooggiisiiba dalka ganacsigiisa haya waxaan qayb ka qaadan doonaa qaabka aad u abaabulan tihiin ururadiina siday u shaqeeyaan khaladaadkiina wixii gacan laga geysan karo dhismihiina iyadana qayb weyn baan ka qaadan doonaa idinkana waxaan inii dardaarmayaa
haweenkii shalay inaydan noqon Soomaalidu markay dhahaan haweenku wax kuma heshiiyaan oo waa haweenkii shalay haweenka maanta caalamka jira iyaga hogaamiye Soomaaliya marka waxa la rabaa gabdhaha wax bartay ruuxadooda dadkii ka horeeyay waxnaha ka bartaan wixii ay tacliinta ku barteen waa inay u gudbiyaan oo ugu horeysa habka maamulka in la hagaajiyo u baahan yahay kala dambeynta in la ilaaliyo u baahan tahay wax isku quurkuna inuu bataal raba hadii ilaahay idmo marka waxaan inii rajeynayaa guul inta badan inaan idinka inay dhageystaa muhiimadeedu tahay waxa kaliya rabo inaan inii sheego inaan anigu diyaar u ahay inaan wada shaqayn dhow yeelano waad mahadsantihiin wasalaamu calaykum